qiimaha la kala siisto xoolaha nool gaar ahaan lo'da, geela iyo ariga ayaa sare ugu kacay suuqyada dalka maalmihii ugu dambeeyay, iyadoo qiimahoodu uu sare maray ku dhowaad laba jibaar intii horey loo iibin jiray sanadkii hore. Sare u kaca ku yimid qiimaha xoolaha oo sanad walba xilligan oo kale la arko ayaa loo sababeynayaa ganacsato kumanaan xoolo ah iibsato si ay uga dhoofiyaan dalka Sacuudiga maadaama la joogo xilligii xajka, iyo hay-ado fara badan oo iyana iibinaya xoolo fara badan si loo gowraco maalmaha munaasabadda Ciidul Adxaa. Qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha ayaa sheegay in qiimaha bil ka hor la iibin jiray neefka ariga ah iyo kan la iibiyo hadda uu farqi weyn u dhexeeyo, iyagoo taasna ku macneeyay ariga suuqa la keenayo oo aad u yar iyo dalabka oo badan. Neefka ariga ah ee birimada ah waxaa bil ka hor la kala siisan jiray $100 ilaa $120, hase ahaatee waxa uu gaaray ilaa $250 wax ku dhow. Ariga suuqa la keenaa aad ayuu u yaryahay, sidaa waxaa yidhi ganacsatada suuqleyda. suuqi xoolaha waxaa ku yimid arafada ku timaadee waxaa isbedelay xoolihii, waayo baabuur waa la soo gadaa, baabuur baa la soo saaray, xamaaliyaa soo galaya, qarashaa soo galayo, dee waa ka qiimihii ewel la gadaayey waa ka sare maray. xaaladda suuqan waa suuq wanaagsan, waa degmada Daayniilo, suuqa Raadeelka. marka warka jira neefka berimada waa 160. sanad walba marka la soo gaaro xilligan xajka ayaa waxaa dalka Sacuudiga loo dhoofiyaa xoolaha gaaraya 10,000 oo neef, kuwaasoo maraakiib kala duwan ay ka daabulaan dekedaha Boosaaso, Berbera, Muqdisho iyo Kismaayo, halka dhinaca kale gudaha dalka maalmaha Ciidul Adxaa lagu gowraco kumanaan neef oo isugu jira geela, lo'da, ariga iyo idaha, kuwaasoo qarashaad badan ay ku soo iibiyaan dad Ilaahay wax u dhiibay ama wax siiyey iyo hay-ado islaami ah, iyagoo kadibna sadaqo ahaan u siiya dadka danta yar ee aan awoodin in ay maalmahaasi ciidda gowracdaan hilibka, amaba ujeedkoodu yahay sidii ay dadkaasi hilib ay uga dhergi lahaayeen intii Ilaahay calaf ugu daray.